السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسودة وهذا أدي هذا وما هتسنتهين ما أنت وايسنين ورنستي توان كبيش شناد ماي سنة كلابا كن إيه لحية لباتنك مقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقه جبر مدوة أو جبر سومالية ودي شيء كونتون دولار أو دينة وحلقوا جبر دا سومالي دا من يابلس أي أرنتا كدعدي سيديو دعدي وان إذا لو وذاقية حدي على إدمه madaxweyne Trump oo sii wada in xilka uu ka tuuro xubnaha Republicaanka ee xisbigiisa ee labada aqal ee ka soo horjeestay doorasho muhiim ah oo berri ka dhici doonta gobolka Kentucky iyo mid kale oo Sabtidii ka dhacday gobolka Louisiana oo Senator Trump ka soo horjeeday oo Trump meesha ka tuurayna waan idin la wadaagaya maxay yihiin kuwa uu hadda u hanjabayo fayraska qatarta ee Ebola oo ka dilaacay laba wadan oo Afrikaan ah kiisas fara badanna laga helay dhimashana la soo tabinaya sidoo kale waan idin la wadaagaya arrimaha Iran sidoo kale Mareykanka iyo Israa'iil waxay qorsheynayaan in duulaan kale ay ku qaadaan Iran laakiin Iran waxay leedahay wada hadaladii waa ay socdaan dawladda Mareykankuna waxa ay aqbashay in qaar kamid ah qodobadii la isku haystay ay ka tanaasusho sidoo kale Trump waxa uu leeyahay Iran waqtigu waa uu ku socdaa maanta qoraal uu bartiisa True Socialka ku soo qorayna waxa uu leeyahay Iran waa ay isdhiibtay arrimahaasi waan idin wadaagaya haddii alla idmo balse marka hore soo dhawaada maad raadinaysaa meel aad ka barato quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka adiga oo jooga gurigaaga hab online fursadda waxaad ka helaysaa Al-Misbaax Academy ka baro quraanka kariimka higaada akhris iyo qoraalba iyo asaasiyaadka diinta sida salaada iyo ducooyinka xadiiska fiqiga iyo maadooyin kale dugsigu wuxuu qaadanayaa fasal cusub caruur iyo dad waaweynba la xiriir wixii faahfaahin dheeraada nambarka ku muuqda حج مبروك سلام جروب حجك سندك waxay idin haysaa hoteelo u dhow labada xaram Maka iyo Madiina loogana lugayn karo gaadiidka ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah wuxuu jeenta waalidka oo geeriyooday aan awoodin iyo umreynta haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah waxa aan ka caawin doonaa gudashada acmaasha xajka fadlan wac WhatsApp number eber 96545928475 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shariicada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shariicada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda wararkan ka helayno magaalada Minneapolis ayaa waxa ay sheegayaan in gabar Soomaali ah oo magaceeda lagu magacaabo Aisha Farax Yusuf oo 32 jir ah in sagaalkii bishan ay dishay gabar madow ah oo magaceeda la yiraahdo Henrietta Shamandra Giles oo 42 jir ah labadan dumarka ah kulay dad saaxiib ah inay ahaayeen ay u muuqataa sida warbixintu ay u dhacayso aad arki doontaan waxa la rumaysan yahay $50 oo deyn ah oo gabadha Soomaalida ah lagu lahaa in dilkeeda sabab u ahaa guri ku yaala Minneapolis toddobaadkii la soo dhaafay gabadhan madowga ah oo aad aragtaan oo la yiraahdo Henrietta Shamandra Giles oo 42 jir ah ayaa lagu soo oogay dil heerkiisu yahay midka labaad iyadoo la xiriirinayo toogashadii ay toogatay Aisha Farax Yusuf oo 32 jir ah maxkamadda dokumentiyada gobolku waxay muujinayaan in gabadhan la yiraahdo Giles oo gabadha Soomaalida dishay gabadha Aisha dishay iyo laba nin oo marqaati ah in ay guri ku yaala Minneapolis sagaalkii bishan aynu ku jirnay ee May ay isugu tageen xilliga marka gudaha ay ku jireen ayaa waxa la leeyahay labada dumarka waxa ay ku murmayeen lacag $50 ah oo deyna sida la leeyahay gabadhan madowda ayaa ku lahayd gabadha Soomaalida ah waxana sidoo kale ninka guriga kireystaha oo guriga iska lahaa uu sheegay in uu suulida aaday labadan dumarka ah oo murmaya ninka kale oo marqaatiga ah labadan nin kulay lama sheegin waxa ay yihiin laakiin sida muuqata labadan dumarka iyo labadan ragga ah qolkaasi ay isla joogeen ninkii labaad oo qolka ku haray marka laga reebo midka suulida aaday ayaa waxa uu arkay in Giles ay aaday qolka jiifka isla markaana iyadoo qori wadata ama bastoolad wadata ay la soo laabatay kadibna apartmentiga ninkii iska lahaa ayaa waxa uu sheegay in uu maqlay ninkii kale oo ku qaylinaya Hershey waa naanaysta loogu yeerayay gabadha
gabadhan madowda ah maxaad samaynaysaa kadibna waxaa ka dambeysay risaas ayaan maqle ayuu leeyahay markhaatiga labaadna waxa uu sheegay inuu isku dayay inuu joojiyo gabadhan la yiraahdo Childress isla markaana waxa ay toogatay dhowr xabadood ay ku dhufatay iyadoo bistooladeeda isticmaalaysa gabadhii Soomaalida ahayd ee Caaisha labada ninna guriga ayay orod uga soo baxeen kiyagoo waliba daba socday la leeyahay gabadhan la yiraahdo Childress kadibna baarayaasha ayaa waxay yimideen goobtii dilku uu ka dhacay marka ay la hadleen ciidamadana marqaatiyaashii waxa ay sheegeen in gabadhaasi la yiraahdo Childress ay ku hanjabtay in ay sidoo kalena dilaysa iyaga haddii ay horteeda istaagaan macnaha inaan ka celino waa inaga diida ayay leeyihiin marka 911ka waxaa dukumentiyada maxkamadda ku xusan in isbitaalka loo qaaday gabadha Caaisha Yuusuf Faarax isla markaana sidoo kalena isbitaalka markii dambe ay ku geeriyootay waxaana la soo qabtay markii dambe gabadhii dilka geysatay iyadoo lala hadlay marqaatiyaashii waxaana ay beenisay in iyadu ay dogashadaasi ama dilkaasi ay geysatay laakiin waxaa la soo hordhigay muuqaalo oo camera goobta ku kaag dhaweyd ay duubtay ama apartmentada ku xirnayd waxaana sidoo kalena ay kaamirooyinka muuqaaladaasi ay muujinayeen in goobta ay joogtay maalintii dilka uu dhacayay marka sidaa darteed iyadoo ilaa hadda waa ay beeninaysaa laakiin xabsiga ayay ku jirtaa oo waxa ay ku eedeysan tahay dilka gabadhaasi Soomaalida ah oo ay dishay gabadhan madowda ah marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha dilka gabadhaasi Soomaalida ah waa dila soo socodsiin doona haddii aan leedmo dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa waxa uu sii wadaa in uu xilka ka tuuro amaba doorashada soo socda aysan soo laabanin xubnaha Republicaanka ee labada aqal ku jira ee isaga ka soo horjeestay ama siyaasadiisa ama sidoo kale siyaabo kale uga soo horjeestay oo sharciyo uu watay ka soo horjeestay ama sharciyo uusan rabin u codeeyay waxaa hadda ka mid ah senatarka la yiraahdo Bill Cassidy oo Louisiana laga soo doorto ilaa iyo sanadkii 2015 ayuu aqalka sanadka ku jiray muddo 11 sano ah sabtidii doorashooyinka Israa'iilka ayaa markaa waxa uga adkaatay gabar uu Trump taageeray oo la yiraahdo Julia Letlow marka saddex qofood ayaa tartamayay Bill Cassidy oo kursiga hayay waxa uu noqday qofkii ugu dambeeyay waliba doorashadan waxa ku baxday ololaheeda lacag aad u fara badan oo ku dhawaad 23 milyan ayuu Bill Cassidy uu qarash gareeyay waxaana uu galay booska saddexaad 24.8% ayuu helay Julia Letlow iyaduna 10 milyan qarash gareysay waxa ay heshay 44.8 halka John Fetterman uu helay 28.3 marka labadan xubnood oo Republicaanka ah ee Julia Letlow iyo John Fetterman ayaa doorasho kale Israa'iil waxay ku laaban doonaan in labada bisha June ee soo socota marka Trump Bill Cassidy gabi ahaanba meesha waa uu ka tuuray waliba bartiisa Truth Socialka ayuu waxa uu ku soo qoray waa ay wanaagsan tahay inaan arko in mustaqbalkiisa siyaasadeed uu dhamaaday dhinaca kale waxaa jirtay Trump markii la soo gala joojiyay sanadkii 2021 markuu xilka ka degay kadib maadaama taageerayaashiisu ay weerareen aqalka Congress-ka bishii January 6 sanadkii 2021 waxaa jirtay 7 xubnood oo senator ah oo u codeeyay Trump in uu dambi ku leeyahay arrintaasi hadda waxa muuqata in 4 kamid ah ama iscasileen ama ay yiraahdeen ma tartamayno oo ay ka hareen Bill Cassidy sabtidii ayuu ka adkaaday marka hadda waxaa jira Susan Collins oo Maine laga soo doorto iyo Lisa Murkowski oo Alaska laga soo doorto ayaa ka hartay 7 xubnood 5 kamid ah Trump waa uu ka adkaaday dhinaca aqalka wakiilada 10 xubnood ayaa u codeysay Trump inuu dambi ku leeyahay markii la soo gala joojiyay hadda 9 kamid ah ama waa iscasileen ama wax yiraahdeen ma tartamayno hal xubin oo Republican ah ayaa marka hadda soo haray waxaa jirta maalinta bari ah gobolka Kentucky doorasho muhiim ah ayaa ka dhici doonta aan xildhibaan Thomas Massie oo Trump si aad uga soo horjeestay sharcigiisii The Big Beautiful Bill kana ka soo horjeestay xubnihii u ololeeyay Epstein Filesna in la soo bandhigo ka dambeeyay ayaa Trump hadda waxa uu doonayaa inuu kursiga ka tuuro doorashada bari Kentucky ka dhacaysa waxa la tartamaya Ed Gallier oo Trump uu taageeray sida aragtaan aqalka cad uu tagay oo sawirkan uu la galay marka waxa uu leeyahay hadda Thomas Massie waa aan soo bixi karaa marka doorashadaasina bari ay dhacaysaa waan arkaynaa waxyaabaha ka soo kordha sidoo kalena waxaa jirta in Trump uu u hanjabay xildhibaanada kale ee Republicaanka ee laga soo doorto gobolka Colorado ee Lauren Boebert sababta maxay tahay waxa ay u ololeysay Thomas Massie oo Trump ka soo horjeeda sida darteed waxa uu yiri iyadana waan xilkan ka tuuraya haddii ay taageeradaasi sii wado waa uu u hanjabay inkastoo hadda iyada qof la tartamaya uusan jirin doorashooyinka Israa'iilka ee 30 bisha soo socota ee June dhacaya haddana Trump waa uu u hanjabaya marka arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa marka Trump dhammaanba xubnihii ka soo horjeestay waxay noqdeen kuwo iscasilay kuwo yiri maba tartamayno iyo kuwo markii ay tartameen Trump xubin ka soo horjeeda inta uu taageeray
uu ka guuleystay sidaasi ayaa socota marka doorashooyinka xilliga dhexe labada aqal ayaa lagu tartamaya dhinaca degmooyinkana maxkamadda sare ee gobolka Virginia waa ay diiday dib u calaamayntii xisbiga dimuqraadiga ay sameeyeen oo 4 xubnood oo dheeraad ah ay ka qaateen Republicanka marka maxkamadda sare ayaa hadda la isla aadaya arrintaasi gobollo ay ka mid tahay Alabama iyo Tennessee Republicanku olole ayay ka wadaan dib u calaamayn marka sida muuqata Trump hadda xisbiga Republicanka ayaa uga horeeya dib u calaamaynta degmooyinka xisbiga dimuqraadiga arrimahaasina sidoo kale waan arki doonaa halka la isla gaaro ugu dambeyntii wadahadaladii Iran iyo Mareykanka u dhaxeeyay meel xasaasi ah ayay marayaan Trump shalay waa kii hanjabo u yiri saacadu waa ay socotaa Iran waxba kama hari doonaan waqtiguna iyaga lama jiro sidoo kale waxa jirta hadda maanta in afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo leeyahay Ismaaciil Bachai waxa uu yiri Pakistan waxa ay noo soo direen in qodobadii wax laga bedelo aan horay u gudbinay sida darteed wixii anaga dhinaceena aan ka bedeli karno waan ka bedelnay isla markaana waan u dirnay marka la dawladda Pakistan we received from the Pakistani mediator some reservations and some amendments, which means that after sending our viewpoint to America through Pakistan, we have received some amendments from the United States. We discussed these matters and these things and these amendments, and we have informed them yesterday with our position. We have sent them our viewpoint. This path is ongoing through the Pakistani mediator. laakiin hadda warbaahinta Iran waxay soo tabinaysaa in dawladda Mareykanku ay ogolaatay in cunaqabataynta dhinaca dhoofinta shidaalka ah ay laga qaado dawladda Iran oo laga qafiifiyo isla markaana sidoo kalena dhinaca nuclearka wadahadaladooda Iran waxay leedahay waa inaysan isku xirin Mareykanku wadahadalada nuclearka iyo dhamaynta dagaalkan sidoo kalena waxay dawladda Mareykanku ay ogolaatay 25% in lacagihii Iran ka xanibnaa si tartiib ah loogu fasaxo dhowr waji laakiin hadda 25% loo fasaxo marka Trump shalay waxa la leeyahay Netanyahu ayuu la hadlay sawirkan xitaa AI lagu sameeyay ayuu soo galiyay oo ciidamada Space Force ee cirka isagoo xaruntooda joogo isla markaana badan gaduud ah gacanta ku haya marka waxa uu ku hanjabayaa inuu nuclear adeegsan doono lama ogo arrintaasina sidoo kale Trump bartiisa True Socialka ayuu soo galiyay sawirkaasi AI-da ah dhinaca kale Trump qoraalkan ayuu soo qoray maanta bartiisa True Socialka wuxuu leeyahay Iran haddii ay isdiibto isla markaana ay qirato in dhammaanba ciidamadeedii badda ay badda gunteeda ay joogaan isla markaana ciidamadoodii cirka aysan u babac dhigi karin ciidamada Mareykanka dhammaanba militarigoodana ay isaga baxaan waxa uu yiri Tehran isla markaana hubka ay dhigaan gacmahana ay kor u taagaan waxa uu leeyahay mid waliba isagoo ku qaylinayo waan isdiibnay isla markaana sidoo kalena ay babinayaan in calanka cad oo ah micnahooda inay isdiibeen isla markaana dhammaanba madaxdoodu ay saxiixaan dukumeentiyada laga maarmaanka oo isku dhiibayaan guul darrana ay qaataan isla markaana ay sheegaan inaysan u babac dhigi karin awoodda ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay sidoo kale wargeysada qaar ayuu galaya wuxuu leeyahay wargeyska New York Times iyo sidoo kalena The China Street Journal oo Wall Street Journal uu la jeedo iyo sidoo kalena televisionka CNN ka uu leeyahay waa kuwa musuqmaasuqa dhammaanba waxa uu leeyahay dhammaanba warbaahintaasi waa kuwa been sheega isla markaana waxa uu leeyahay Iran ayaa ka guuleysatay Mareykanka ay markastaba ay leeyihiin arrintaasina xitaa arrin u dhow ma ahan dimuqraadiyiinta magac ula baxay Trump wuxuu leeyahay Democrats ayuu ula baxay marka wuxuu leeyahay dimuqraadiyiinta sidoo isagu sheegay media daacadda u ah wuxuu yiri wadadoodii ayay ka lumeen isla markaana sidoo kale waa ay waasheen marka Trump wuxuu leeyahay waa inay Iran isdiibtaa sida hadalkiisa qoraalkiisa hadda uu ku soo qorayo calanka cad waa inay babiyaan isla markaana ay saxiixaan dukumeentiyada muhiimka laakiin Iran waxay leedahay arrintaasi ma jirto isla markaana ma ahan Mareykanku inay isku xiraan wadahadalada nuclearka iyo sidoo kale sidii dagaalkan lagu dhameyn lahaa labada arrin ugu muhiimsan waxay tahay arrinta nuclearka iyo marinka Hormuz oo la isku hayo dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa goordhow bartiisa True Socialka waxa uu ku soo qoray in amiirka dalka Qatar dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Imaaraadku ay ka codsadeen inuu joojiyo weerarkii military ee qorshaysnaa maalinta bariyaha in Iran dawladda Mareykanku ay ku qaado waxa uu yiri wadahadallo ayaa socda wadahadalladaasina waxaan filaynaa in heshiis u wanaagsan xitaa wadamada bariga dhexe ay ka soo baxaan marka waxa uu yiri wasiirka dagaalka Pete Hegseth ee taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane waxa aan u sheegay in la joojiyo howlgalkii military ee bari qorshaysnaa in Iran
lagu qaado laakiin Trump wuxuu yiri waxaan doonayaa wada hadalladan inay ka soo baxaan mid ah in Iran weligeed aysan hub nuclear ah aysan yeelan doonin marka Trump qoraalkaasi ayuu bartiisa True Social ku soo qoray wuxuu leeyahay amiirka Qatar dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Imaaraadka ayaa iga codsaday in aan joojiyo weerarkii military ee qorshaysnaa maalinta beri ah inaan ku qaado wadanka Iran marka arrintaasina wada hadallo serious ayaa socda ayuu leeyahay oo natiijana la filayo in heshiis la gaaro oo heshiis uu ka soo baxo marka xaaladahaasina halka ay ku dhamaadaan waan arki doonaa ugu dambeyntii fayraskii qatarta ah ee Ebola ee dilaaga ah ayaa waxa uu ka dilaacay laba wadan oo Afrikaan ah waa Democratic Republic of Congo oo hadda la leeyahay ilaa iyo waxa laga helay 300 iyo waliba 36 kees 88 qof waa ay dhinteen laakiin kiisaska la xaqiijiyay waxay leeyihiin ilaa hadda waa 10 Uganda sidoo kale 2 kiis ayaa laga helay hal qofna waa uu u geeriyooday hay'adda caafimaadka adduunka WHO na waxay ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah in taxadir la muujiyo waxaan ognahay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2021 waxay ku dhawaaqeen fayraskii H1N1 oo waliba dhinaca hargabka qatarta ahaa 2014 waxay ku dhawaaqeen West Africa inuu Ebola ka dilaacay 2015 Zika virus ay ku dhawaaqeen halka 2020 COVID-19 ay ku dhawaaqeen marka fayraskaasi waa qatar hadda labadaasi wadan ee Uganda iyo Democratic Republic of Congo ayaa laga soo sheegayaa dowladda Mareykankuna waxay tiri ma jirto qatar shacabka Mareykanku ay hadda ka walwalaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo